idilhaatiin meel baad naga daawadeysaan bahda ku xidhan sportiska iyo guud ahaan cid kasta oo xiisaysa ciyaaraha waxaan leenahay maalin wanaagsan halkan waxa ila jooga maanta waa Ciise Tony waa mid kamida tabiyaasha ay ku raaxaystaan boqolaal kamida marka uu tabinayo ciyaaraha waxa la xiisayn jiray koobkii gobolada waqtigaas oo ay dadku malaaciso barteen waqtigaas kugu horeysay daawadayaal badan Ciise mas'alada codkaaga waxaad ku raali gelisay daawadayaal badan oo ka sugan daafaca caalamka iyo guud ahaan wadankeena asantahay sikriyo walaal maxay tooleen su'aashaad weydiisay mas'alada cid dad badan ayaa maxay tooleen ku raaxaysta codkaaga ama tabintaada ciyaaraha horta ugu horeen waxaan ka soo bilaabay hayaan dheer macallinimada ama tabinta ciyaaraha oo ilaa muddo ilaa 2015 marka intaas ilaa iyo la soo gaadhay ciyaarihii gobolada Soomaaliland ciyaarahaas horta xasuus gaar ah igu lahaa dabcan ha isleeyahay insha Allah dadka dadyooga badan ama goobaha aan noqoto bulshada isugu timaado maxaad kala kulantaa su'aalaha ugu badan ee lagu weydiiyo samxay isagiriyo horta su'aashaas maxaa ugu badan ee dadka ku su'aalaan marka maxay tahay bulshada dhex joogto marka bulshada dhex joogto badan dadku waxay su'aalaan horta su'aal baa qof kasta weydiiya su'aasha muqdisho goor ma ka tahay su'aashaas badan dadka ay weydiiyaan inta badan waxay su'aashaasi ku iman kartaa adigu ma tagtay marna se ciyaarahooda waqtiyada aad tabinaysay maamul goboleedyada kale waqtiga lagu bartay bay ahayd dadku waxay suudinayeen ciisim xaggaas ku sugan yahay halkan buu joogaa cidna ma ogeyn adiga maxaa dareenhan kugu soo noqday feedback kaaga soo noqday bulshada wuxuu ahaa waqtigaas se marun hammi ma ku jirtaa inaad marun xagga adigu ka citinto aad leedahay marun aad tag maadaama dad badan imika sida kuleeyeen goormaad ka timi ay tahay xiise lagu qabay marun ma jeceshahay in ciyaaraha halka ka socda guud ahaan inaad horumariso aad leedahay xirfadaada ma tabin kartaa walaal sikriyaad wad ma asantahay su'aashaad weydiisay ma jeceshahay inaad marun aad muqdisho dabcan ciyaarihii gobolada ka socday garoonka Generalize Stadium ee maamul goboleeda Soomaaliya ciyaaraha soo ciyaaraha aad u fiican ciyaaraha aad u xamaasad badan ahaa isla markaasina halkan Hargeysa ka tabinayay oo maxay toolayeen ahaa ciyaaraha marka tabinay dareenkaygu ودين حرت والله ها سيدي أن شو قرون كوكله أما سيدي أن شو كلا عن كسر قرون كوكله أد بنا حسين يعني إن شاء الله مر وكسر تبين دونا بدشوا حتى والله عيارة ما حتى والله أد دونا هكا واللي بقى بدشوا كلية أنا معها وحسلي دمان حتى والله لوكا يسمى دكتور سيدا تشجع سيدا كينيا سيدا جيبوتي دمان أكيد تشجعنا سجع نادينا مركا أو أنا سجنا لفت كيسو يجوها ميدان دم حتى درين كيجوها سيدا أنا قرون كتشجع سيدا waqtigaas ciyaartooyda sanu kala garin waxa badan waxay badnaa ciyaartooyda Soomaaliland oo ka ciyaariyay gobolada Soomaaliland marka jijiga markii la joogay kuwa muqdisho ka ciyaariyay Generalize horta deyn kasta igu cusbaan dhamaantood marka la wadeego balse haddana waxa ay ciyaartooydan qaarkood ka yar galgaranayay bay haayeen oo maxay tahay la qabsiga maskaxda waxyaabo la qabtay dadka markan kale garoonka tagto lagu liiskareeyo koobitonka galaya todobada reserve-ka kuwa ma jirin cid kala shaqeynaysa sidee bay aad u diyaarsan karaysaa waxaan u diyaarsan karay liisaska ciyaartooyda badanaa waxay sameyn jireen telefishinadu waxay soo dhigi jireen maxay tahay liiska ciyaartooyga ama maxay tahay xarunta cable ka ku leeyahay ban qof kamid ah ba garoonka tagi jiray kadibna uu soo diri jiray maxay tahay shaxdii ciyaartooyda dhameystiran halkaas aan ku ogaan jiray ciyaartooy lambarkiisa iyo waxa isku jiray magaciisa kuwa caalamka kala dhimka naadisa ciyaaraha caalamka dhacaya TV uga baxasi af Soomaaliya inta la tagay koorniyada laftirkeeda iyada waxa jira iyada waan garanaya maadaama ciyaari caalamka aad u daawado sidoo daawado aan ku xidhanahay marka iyaga aad baan u garanaya oo aan kala qaana marka taasay i fududeynaysaa si toos u tabiyo ciyaari caalamka waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaan mar uun muqdisho ka soo muuqan doono maxay tahay ciyaar ka soo tabin doono iyadoo dhamaan jijiga stadium sidoo kale sida dhulka Soomaaliya degtay Kenya sida Djibouti ilaa Qatar in heerkii gaaro insha Allah jecelahay